Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan akhyaarta youtube waa idin wada salaamay maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo 3 baanal oo muhiim ah ayaan rabaa inaan ka hadlo baanalka ugu hore aan rabo inaan ka hadlo wuxuu yahay projecti media kaas oo ah meesha muuqaalada laga soo geliyo iyo waxyaabaha kale uu baanalkaasi leeyahay ayaan sharxi doonaa baanalka labaad rabo inaan ka hadlo waxay tahay source panel waa baanalka aan ka arki lahayn muuqaalada intaan gelinin timelineka iyo timeline oo ah halka muuqaalada lagu habeeyo lagu jarjaro hadba sida ay adiga doonto aad ugu habaysan karto marka daawasho wanaagsan marka ugu horeysa markaan Adobe Premiere Pro sidaan aan usoo furno sidaad ujeedo marka qodobka ugu horeeya aan rabno inaan ka hadlo wuxuu yahay waa projecti media waa meesha muuqaalada laga soo geliyo marka haddii aad rabto in Adobe Premiere Pro aad muuqaal soo geliso dhowr siyaabood waad u soo gelin kartaa muuqaalka marka aniga hadda waxaan ku tusin doonaa 3 qaabood ayaan ku tusin doonaa oo ah sida muuqaalka loo soo geliyo Adobe Premiere Pro-ga ugu horeyn adigoo projecti media-gan adiga joogto in aad double click aad siiso markaad double click aad siiso sidaad ujeedo marka wuxuu ku soo bandhigayaa desktop-ka ayuu ku keenayaa marka waxaad dooranaysaa folderka aad rabto inaad ku shaqeyso sidoo kale aniga ahaan waxaan kula talin lahay haddii aan lahayd inaad saarato background musiga iyo videoga iyo waxyaabaha oo idil hal folder iskugu keen iyo projectiga aad ku shaqeynayso in ay hal folder kuugu wada jiraan ayaa wanaagsan qaabkan waad usoo gelin kartaa qaabka labaad kale aad usoo gelin karto waxay tahay inaad file aad dhahdo kadibna aad kasii xelato import ama control I inaad dhahdo sidaasna waad usoo gelin kartaa kadib markaan ku dhufano marka ugu horey marka waxaan soo gelinaynaa muuqaalo ayaan soo gelinaynaa aniga intaan rabo muuqaal ayaan soo gelinayaa adigana intaad rabto waad soo geshan kartaa marka ugu horey marka waxaan soo gelinayaa 4 muuqaal ayaan soo gelinayaa kadib marka waxaan leenahay open ayaan leenahay marka hadda meeshan ayaa nogula keedinayaa muuqaaladeena markaan muuqaalka aan sidan oo kale aan usoo gelino ugu horey marka projecti panelkan wuxuu leeyahay tabs ayuu leeyahay marka waxaan rabnaa inaan ogaano tabiskan waxa loola jeedo ugu horey marka qufulkaas muxuu u taagan yahay qufulkan wuxuu u taagan yahay in aad ka akhriso kaliya projectigan waxa ku dhex sugan oo timelineka muuqaalka ma keeni kartid hadda tusaale ahaan haddaan qufulkan click aan siiyo sidaad ujeedo meeshan waxaa nogula soo qorayaa read only mode kadib marka waxaan leenahay yes ayaan leenahay marka hadda sidaad ujeedo projectigeena kaliya wax waan ka daawan karnaa laakiin timelineka muuqaalka ma keeni karno marka sidaasi ayay u taagan tahay qufulkani midkan kalena waxaa la yirahdaa list view ayaa la yirahdaa in uu project panelka muuqaalada kuugu jiro in qaab vertical ahaan uu kuu tusiyo waayo ma arki kartid muuqaalkaaga waxa uu yahay laakiin haddii icon view aad doorato waxaad arkaysaa muuqaaladaada waxa ku dhex sugan aad sidaasi aad ku arki lahayd taabkan kalena waxaa la yirahdaa free font view ayaa la yirahdaa maxay u taagan tahay labadan tab kale waa sida defaultiga way arrange gareysan yihiin laakiin free font view waa adiga ayaa gacantaada ku haweysanayo muuqaalada taasoo ah sidaad ujeedo hadda muuqaalka waa isduldul saari kartaa midkaada sidan oo kale ayaad isku sii duldul saari kartaa adiga ayaa gacmahaaga ku habeysanayo waxaan ku shaqeyn doonaa list view iyo icon view ayaan ku shaqeyn doonaa midkan kalena sidaad ujeedo waa size-ka in aad aragto projectigaaga panelka in aad zoom in iyo zoom out aad dhihi karto waxa ku dhex jiro haddii sidaad ujeedo markaan zoom in aan dhahno muuqaaladeena zaa'id ayuu noogu soo weyneynayaa haddaan yareynana muuqaaladeena wuu yareynayaa size-kooda midkan kalena waa by name ahaan siday u kala soo horeeyaan oo kale ayaad ka dooranaysaa midkan kalena waa find inaad raadiso projectigan haddii waxyaabo badan aad ku shaqeynayso aad shay magaciis aad taqaano in aad ka dhex raadsato taabkan ayaad isticmaali kartaa marka sidaad ujeedo meeshan kalena wuxuu leeyahay new bin taasoo u taagan in aad ka samaysato group ama folder sidaad u taqaanaba aad xogtaada hal meel aad ku keedsato marka haddaan hadda aan doorano new bin markaan doorano sidaad ujeedo marka ugu horeyso magac ku qora ayuuna leeyahay marka waxaan ku qoranaynaa video ayaan ku qoranaynaa folderkan waxaa loogu talagalay in aad xogtaada qaab arrange gareysan in aad u samaysato marka haddii aad rabto in aad dhammaan muuqaaladan aad geliso folderkan kaliya waxaad samayn kartaa muuqaalka kuugu horeeya ayaad dooranaysaa markaad doorato midka ugu dambeeya ayaad tegaysaa adigoo shiftiga haya kadibna click ayaad siinaysaa kadibna drag and drop it waad samayn kartaa sidan oo kale waad kusii yaro duldaynaysaa marka hadda muuqaaladii waxaa lagu gelinayaa folderkaasi ayaa lagu gelinayaa marka
folderkan qaab shortcut loo sameeyay ayaa jiro. Kaliya waxaad keyboardka ay ka qabanaysaa Control B ayaad leedahay. Waxa lagu sameynaya sidaad u jeedo folder kale ayaa lagu sameynaya. Marka aniga hadda folderkan kale uma baahni waan dooranaya. Markaan doorto waxaan leenahay del ayaan leenahay. Sidaas ayaa nogula delete garaynaya. Meeshan waa new bin waxaa ku jira sequence, adjustment layer iyo caption iyo color mate-ka waxyaabo badan ayaa ku jira. Marka muuqaalada kale ayaan si wanaagsan ayaan ugu sii arki doonaa. Marka hadda waxaan furanaynaa folderka ayaan furanaynaa. Marka hadda sidaad u jeedo markaan folderkan sidaan u soo furnay. Marka waxaan rabnaa in muuqaalkeena aan timeline-ka aan yara keeno ayaan rabnaa. Marka si aan u keeno marka hore waa inaad samaysana wax loogu magacaabo sequence. Marka sequence waa project kaas oo ka soo muuqanayo timeline-kan. Waayo taas ayaa waxa ku cadeynayso in timeline-ka uu u baahan yahay sequence inuu ku shaqeynayo. Marka videogan sequence aad ugu samayso laba qaabood waad samayn kartaa. Muuqaalkaad rabto in aad dul tagto kadibna right click aad dhahdo kadibna aad ka sii xulato new sequence from the clip. Marka wuxuu ku sameynayaa sequence leh muuqaalkaasi resolutionkiisa, muuqaalkaas audiogiisa iyo muuqaalkaasi frame per second-ka uu leeyahay. Marka qaabka kale aad u samayn karto waxay tahay in aad doorato new bin kadibna aad doorato sequence. Marka aniga badanaa marka waxaan ku shaqeeyaa digital SLR-kaaga. Haddii muuqaalkaaga yahay full HD midkan ayaad dooran kartaa. Marka sidee ayaad ku ogaan kartaa in muuqaalkaaga uu full HD yahay ama 720 inuu yahay ama inuu yahay 480. Marka midkan waa full HD waa 1920 times 1080. Midkan kan waa 720. Marka waxay u dhigantaa 1280 720. Marka YouTube-ka midkan waa HD midkan waa full HD. Marka haddii aad rabto in muuqaalkaaga resolutionkiisa aad ogaato marka hore muuqaalkaaga ayaad right click leedahay kadibna waxaad ka sii xulanaysaa properties. Marka muuqaalkaaga faahfaahintiisa ayuu inta kuugu sheegayaa. Sidaad u jeedo meeshan muuqaalkayga size-kiisa ama resolutionkiisa waa midkan waana full HD. Kan aniga muuqaaladeeda inta badan midkan ku habeeyo waa kan waa full HD gan. Frame rate-kiisana waa 23.97. Marka muuqaalkaaga sidaas ayaad ku kala ogaan kartaa hadba resolutionkiisa iyo audio bitrate-kiisa inta uu yahay meeshaas ayaad ka ogaan kartaa. Marka haddii aad rabto sequence inta waad ka samayn kartaa ama si fududba waxaad dhihi kartaa right click kadibna new sequence from the clip. Sidaasi ayaa timeline-ka muuqaalkaaga lagugu soo gelinayaa. Marka sidaad aad u jeedo meeshan waxaa noo soo galay videoga iyo audioga. Meeshan marka waxaa loogu magacaabaa tracks ayaa loogu magacaabaa. V1-kan iyo A1-kan iyo A2-gan iyo V2-gan waxay u kala taagan tahay horta ugu horeyn V1-kan waxay u taagan tahay video 1, A1-kan waxay u taagan tahay audio 1, kuwa kalena waa sidaas oo kale audio 2, audio 3-ga. Marka haddii aad rabto trackskan in aad wax ku soo yara darto haddii ahaato trackan ilaa iyo wuxuu ku egyahay video 3. Haddaad rabto video 4 inaad ku soo darto kaliya waxaad leedahay right click ayaad leedahay kadibna waxaad leedahay add track ayaad leedahay. Marka hadda sidaad u jeedo meeshan video track 1 videoga ayaad rabtaa in aad ku soo yara darto oo video 4 maad rabtaa inaad ku soo darto hal track ayaan rabaa inaan ku soo daro. Sidoo kale meeshan sidaad u jeedo add 1 kan ay ku qoran tahay waa audiogan waa audio 4 miyaad rabtaa inaad ku soo yara darto. Marka waxaan leeyahay ma rabo in aan audio 4 aan ku soo daro. Meeshan marka waxaan ka dhigayaa 0 ayaan ka dhigayaa kadibna okay ayaan leeyahay. Marka sidaad u jeedo meeshan waxaan ugu soo darayaa track oo ah video 4. midna ogow meesha codka loogu talagalay video ma soo gali karo. Trackan audio 1-kan audio 1-kan ma soo gali karo muuqaal. Audio 1-kan asaga ma gali karo video 1-ka ma gali karo. Waayo muuqaalka waxaa loo isticmaalayaa kaliya waxa V1-kan ka sareeyo kaliya ayaad u isticmaali kartaa. Audiona waxaad u isticmaali kartaa waxa audio 1-kan ka hooseeya ayaad u isticmaali kartaa. Marka qaarkood waxaa laga yaabaa in muuqaal cod ku wato markaad rabto inaad timeline-ka aad soo geliso uusan codka muuqaalka uusan wadin kaliya muuqaalka uu meeshaasi ka soo muuqdo ama si cagsi ay dhacdo in muuqaalka uusan soo muuqanin kaliya codka uu soo muuqdo. Markaas ciladaas maxay tahay? Ciladaas waxay tahay tusaale ahaan video ayaad project sidan oo kale aad ugu shaqeynaysaa. Meeshan haddaan ficta aan ka qaado meeshan hadda ficta aan ka qaado kaliya meeshan hadda waxaa ii soo galaya audioga ayaa ii soo galaya muuqaalkaasi codka uu wato ayaa ii soo galaya.
ima soo galayo muuqaalka gebi ahaantiisa. Marka haddaad muuqaalkan waa introgeyga markaan kusoo yara duldeeyo hadda markaan soo dragging gareeyo sidaad u jeedo codka kaliya ayuu wadaa muuqaalka ma wado. Maxay tahay marka ciladaasi? Marka waxay tahay in video-wankan uu sequence-giisa uusan jeega ku saarnayn. Marka haddaan hadda video-wankaas aan jeega saaro waxaa hadda meeshan ii soo galayo videoga iyo codka gebi ahaan wuu ii soo galayaa. Marka haddii hadda audio-gan aan jeega ka qaado kadibna aan rabo in videogeyga aan soo jiido aan timeline-ka aan keeno kaliya waxaa ii soo qaadmayo video ayaa ii soo qaadmayo codka ima soo qaadmayo waayo audio-wanka jeega ima saarno. Marka trackiskaas sidan sahlan ayaad ku adeegsan kartaa. Marka timeline-kan intaan muuqaalood waan ka delete gareynayaa select ayaan sidaan oo kale u saarayaa kadibna del ayaan leeyahay. Haddii aad rabto videoga iyo audioga in aad inta kusii yara weyneyso meeshan kaliya ayaad double click siinaysaa. Sidaad u jeedo videoga waad arkaysaa. Meeshan haddaad double click aad siiso muusikadana sidaas ayay kuugu weynaanaysaa. Marka sidoo kale marka meeshan waxay u taagan tahay toggle track output-kan haddaad ficta ka qaado ma arkaysid muuqaalka preview-gan waa laga qarinayaa. Haddaan marka ficta aan saarno muuqaalka waa noola soo muujinayaa. Sidoo kale mood-kan kan waa mood track wuxuu codka ka xirayaa muuqaalka. Marka sidaas ayaa loo isticmaalaa dhankan iyo trackiska. Marka sidoo kale calaamadani waxay u taagan tahay in uu ku yara weyneeyo oo zoom in ama zoom out uu kugu siiyo markii aad timeline-ka muuqaalada aad ku habeyneyso. Ama keyboardka haddaad ka daawato calaamada balaaska iyo meniska waxaa waa iiga yareey balaaskana waxaa waa ii soo weynay muuqaalkan si aan u arko khaladaadka. Markaan jarjarayo kale khaladaadka ayaa loo adeegsadaa si wanaagsan ayuu kaaga caawinayaa. Sidoo kale labadan oo kale waxay u taagan yihiin in qaab vertical ahaan ama horizontal ahaan ay kuugu yara weyneeyaan ama ay kuugu yareeyaan muuqaalka timeline-ka ku dhex jiro. Kan wuxuu ahaa in muuqaalka by horizontal ahaan uu kuugu dheereeyo ama uu kuugu gaabiyo. Midkan kalena marka sidaad u jeedo muuqaalka mar wuu kuugu yara weyneynayaa marna yariis ayuu ka dhigayaa. Marna yariiskaasi ayuu ka dhigayaa muuqaalka. Marka timeline-kan iyo trackiskan marka sidaasi ayaa loo adeegsadaa. Mararka qaarkood waxaa dhici karta in muuqaal waqti badan soconaya aad rabto qeyb yar in aad timeline-ka aad soo geliso adigoodan timeline-ka aadan ku jijarin. Markaas waxaad u baahan tahay waa source preview ayaad u baahan tahay. Source sidaan hore usoo sheegnay waa screen kaas oo aad ka daawanayso muuqaalka inta aadan soo gelinin timeline-ka. Hadda tusaale ahaan marka waxaan rabaa introgeyga ayaa waxaan rabaa in qeyb ka mid aan soo qaato anigoonan timeline-ka ku jarjarin muuqaalka. Marka hore double click ayaad siinaysaa. Markaad double click aad siiso muuqaalka source monitor-ka ayaa lagugu soo gudbinayaa. Markaad sidaad u jeedo muuqaalkaaga ayaad si nadiif ah ayaad ugu daawanaysaa. Markaad sidaad u jeedo marka muuqaalka qeybtaad rabto ayaad ka soo baxsan kartaa muuqaalka. Waxaan kuu fududeynayo source panel-ka ayaa kuu fududeynayo. Marka muuqaalka meesha aad rabto ugu horeyn inuu kaaga bilaawdo ayaad tagaysaa. Markaad tagto calaamadan mark it in ayaad dooranaysaa. Muuqaalkaaga meeshan ayuu ka bilaabanayaa. Waxaad sidoo kale aad tagaysaa meesha aad rabto in muuqaalkan aad ka soo yara baxsato ama meesha aad rabto inuu kugu ekaado ayaad geysanaysaa. Marka sidaan oo kale aad u geysato waxaad isticmaalaysaa mark out ayaad isticmaalaysaa oo keyboard shortcut-giisa uu yahay O. Marka sidaan oo kale aad u market gareysato hadda marka source-gan 3 qaabood ayaad muuqaalka u soo yara gelin kartaa timeline-ka. Qaabka ugu hore wuxuu yahay in muuqaalka kaliya aad soo geliso codka aadan soo gelinin adigoo drag and drop it ku sameynayo gacantaas video icon-kaas adigoo drag and drop it ku sameynayo kaliya wuxuu ku yara keenayaa muuqaalka ayuu ku keenayaa codka kuma soo qaadayo. Sidoo kale haddii aad rabto inaad codka kaliya aad ka soo qaadato icon-kaas audio-ga ayaad ka soo qaadanaysaa drag drop it adigoo click tahaya ayaad soo dragging gareynaysaa. Qaabka labaad waa sidaasi. Qaabka saddexaad oo aad rabto in muuqaalka macala codkiisa aad soo yara geliso timeline-ka kaliya waxaad sameynaysaa adigoo screen-kan weyn joogo ayaad drag and drop it ku soo yara jiidaysaa. Kadib markaas wuxuu kuu sahlayaa in aad codka iyo muuqaalka aad soo geliso timeline-ka. Source panel-ka sidaas ayaa loo adeegsadaa. Timeline-kana sidaan ayaa loo adeegsadaa. Project panel-kana sidaas ayaa loo adeegsadaa.
marka insha Allah cashirkan intaan ayaan kusoo gabagabayn doonaa insha Allah tool walba Adobe Premiere Pro uu leeyahay intaan aan awoodi karo waan sharxi doonaa insha Allah ugu dambeyn fadlan haddii ay tahay marka kugu horeyso aad channelkan soo booqato fadlan subscribe saar furaha lamada gambaleelka si ay kugu soo dhaco muuqaal walba aan soo gelino haddii aad videogan ka faa'iiday la garee una sii share garee asxaabtaada si ay ugu faa'iidaystaan ugu dambeyntiina waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh